واتهاي ساوث أفريقيا مدحونا عصب الدورتي أيها نص صعود المرلو أنقص هري إثيوبيا وحلكي رئيس وزراء إسكا عسلي دسلين حيل مريم waxaa kale oo iska casriye gudoomiyaha xisbiga talada haya EPRDF ta iscasriyadan waxay ku soo beegantay waqti qaybo dalka kamid ah rabshado ay ka dhacayaan rabshadahaas oo sababay in dad badan ay dhintaan kuwa kale ay ku dhaawacmaan qaarna ay barakaceen kuwa kalena jeerasha laga buuxiyay in kasta oo qaar badan la cafiyay haddaba waxaanu eegaynaa sababaha keenay in ay Xayla Maryam uu xilka ka dago xilkaas uu hayay 2012 ilaa iyo maanta waqtigaas uu geeriyooday ra'iisul wasaaraha hore Malla Sanaawi wariyaha BBC da raga xasan iyo toos iminka uu fadhiya stuudiyaha iyaga Nairobi raagi waa mahadsantahay bal marka hore waxaan nooga warantaa khudbadii ra'iisul wasaaraha iscasilay iyo wixii dheeraad ku soo kordhay iyo sababtii uu askaray عبد النور خطبة رئيس وزراء كجيري تلفزيون كدولة ayaa waxa uu ku sheegay inuu rajeynayo in iscasilaadiisa ay gacan ka geysan doonto halka loo raadinayo xasilooni darrada haatan ka taagan dalka Itoobiya waxa uu sheegay in iscasilaadiisa uu arkay inay qayb weyn ay ka tahay dib u habeynta lagu sameeyo dalkaasi oo si loogu soo dabaalo ayuu yiri nabad buuxda isagoo sheegay in iscasilaadiisa uu arkay intaasi ay qayb muhiim ah ka tahay gaar ahaan sidii nabad buuxda buu loogu soo dabaal lahay dalkan oo ah marka la eego dhinaca dhaqaalaha bariga Afrika kan korin ahaan ugu ballaaran isagoo arrimahaasi ka hadlaya ra'iisul wasaare Xayla Maryam Dasalaamin waxa uu yiri ihadagna mangist baahul waqt waxaan rumaysnahay in baarlamaanka Itoobiya uu iga aqbali doono iscasilaadeyda sababta ugu weyn ee aan u soo gudbiyay iscasilaada waa aaminsanaanteyda inaan qayb ka noqdo xalka si loo helo nabad waarta iyo dimuqraadiyad aan liiqliiqan ee wadankeena عبد النور waxaad ogsoon tahay in iscasilaadiisa ay daba socotay rabshado dalkaasi ka dhacay taasoo ku qasbay dawladda inay sii deysay in ka badan 6,000 oo maxaabiis siyaasad u xirnaatan iyo bishii January boqolaal qof ayaana ku dhintay rabshadahaasi oo bilowday sanadii 2015 oo ka bilowday inta badan gobolada ugu dadka badan dalkaasi Oromia iyo gobolka Amhara xasilooni darradaasna waxay markii hore ku bilaabatay diidmo ay dadkaasi diidnaayeen qorshe ay dawladda ku ballaarinaysa caasimada Addis Ababa balse markii dambe isku bedelay carad dadweyne oo ka dhan ah waxay ugu yeereen xadidaad dhinaca siyaasadda dhul boob iyo sidoo kale tacdiyad dhinaca xuquuqda aadanaha waxayna taasi horseeday in dawladda xaalad degdeg ah dalka ay geliso muddo 10 bilood ah balse waxaad moodaa in taasi aysan xalilin iyadoo markii dambe dawladda soo saartay siyaasad ay dadkaasi xabsiga uga soo deynaysa gaar ahaan dadkii 3 sano la soo dhaafay xabsiga la geliyay iyadoo sidoo kale cafis u fidisay balse waxay u muuqataa intaasi aysan gacan ka geysan wali xalilida arintaasi iyadoo isbuucan aan aragnay mid ka mid ah mudaharaadyada ugu ballaarna oo ka dhacay goboladaasi gaar ahaan caasimada Addis Ababa oo in ka badan 10 qof ay ku dhinteen waxayna u muuqataa Cabdi Nuur inuu xoogaa jiray kala qaybsanaan xisbiga talada dalkaasi hayo qaabka arintan loo xalin lahaa Xayla Maryam hadalkiisana waxa ka muuqatay in uu leeyahay siyaasadda wali kama tanaasulin balse waxaan doonayaa meel ka baxsan halka inaan ku sii waday dib habeynta oo halka qayb ka noqdo waa tahay taasi waa tii dawladda ee wadanka sida looga dareemay gaar ahaan mucaaradku ma ka hadlay arintan mucaaradka ayaa durbaba arinta ka jawaabay waxaad moodaa in arintan ay soo dhaweeyeen balse ay leeyihiin arinta wali fari kama qodno Gatana Balja oo ah gudoomiye ku-xigeenka mid ka mid ah xisaabta mucaaradka xisbiga loo yaqaan Blue Party ayaa waxa uu sheegay in tani ay ahayd mudaharaad ay dadka sameeyeen mid ku khasabtay ra'iisul wasaaraha inuu iscasilo balse waxa uu sheegay in taasi tahay bilow oo loo baahan yahay mas'uuliyiin kalena in ay arintan ku daydaan ra'iisul wasaaraha uu sameeyay awoodana dib loogu soo celiyo sidoo hadalka uu dhigay dadweynaha waxaanu ku tilmaamay inuu war aad u wanaagsan isagoo sheegay in waxa ugu yeeray halkankan uu sii socon doono raagi waa tahay ra'iisul wasaarihii waa kan way iscasilay maxaa marka la filayaa inay xigaan siba hoggaanka wadanka iyo dawladdiisii iyo wixii oo dhan ma wada raacayaan yaase keenayo soo xulay ra'iisul wasaare cusub waxay muuqataa in wadanka uu ra'iisul wasaaraha u gudbiyay si rasmi ah iscasilaadiisa isla markaana xisbiga dalkaasi talada haya EPRDF sida uu ra'iisul wasaaraha u sheegay uu ka aqbalay balse wuxuu u baahan yahay marka hore xisbigaasi golihiisa inuu fariisto si uu arintan uga hadlo isla markaana baarlamaanka loo gudbiyo si ay u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha iscasilaadiisa haddii arintaas ay ansixiyaan xisbiga ay markale u taalaa soo magacaabid
magacaabidda ra-iisul wasaare kale